hadafkeenu waa in caasimadani ay ku soo noqoto say way ahaan jirtay hadday noqoto dhinaca amniga ayadii ahayd caasimadda ugu amniga badan Afrika haddii ay tahay dhinaca nadaafadda iyo hygiene-ka oo ahayd caasimaddii ugu nadaafadda badnayd ugu nadiifsanayd Afrika marka taasaynu higsanaynaa jid dheer baynu haynaa oo loo riyaaqay shacabkeenu ay aad iyo aad u soo dhaweeyeen adduunyadu aad u soo dhaweysay wax ka bedelay noloshii magaaladan Muqdisho wax weyn ka bedelay ay u muuqatay in muddo dheer oo xaafado ka mid ah ama degmooyin ka mid ah magaalada caasimadda ay dhibaato ay la soo rafanayeen ay la soo galgalanayeen in muddo kooban oo bishii Ramadaan gudaheeda ah arrintaasi lagu zuuliyey munkar adag oo yaalay oo isugu jiray ka imaanayay dambiilayaal ay ugu horeeyaan khawaarijta ay ku xigaan ciyaal weero kuwii loo bixiyey ay ku xigaan kuwii draaga iyo khamriga iyo calaqa ka ganacsanayay iyo kuwii kale ee xashiishka iyo maandooriyaasha kala duwan magaaladan dhinacooda kaga shidayay dabka ee dhibaatada ku hayay dadka muddadaas kooban ayaa si weyn wax looga qabtay waana guul waaye qaybo badan baan soo goynay laakiin haddana yoolkeenu ma dhowa marka mar walba inaan dardar gelino oo levelka ugu sarreeya dowladda in mar walba ay noqoto caasimadda iyo amnigeedu hotline oo maalin walba iyo habeen walba aan ku jirno waa laga maarmaan sidii aad ugu talagasheen hay'adaha amnigu ugu talagaleen qorshe ay soo jeediyeen magaalada say u kala zoneeyeen zoneski ayaa rabnaa in zone 1 zone 2 zone 3 sidii qorshahaas inuu fulaan rabnaa oo isla qorshihii aan dhammaantiis inaan fulino si tartiib aan siday ugu talagaleen inaan u fulino hay'adaha amnigu waxay suurtageliyeen bacdallahi in mas-uuliyiin ay tagaan bakaara oo ay ka soo adeegtaan qaar badan oon arkay oo rag iyo dumar leh oo xildhibaano ah way tagaan maalin bay ka soo adeegtaan hadda waa tagaa waa ka soo adeegtaan guryahoodii bay tageen oo ayna hadda ka hortagi jirin marka magaaladu way baasheeli way furantay waxayna u dhiman waa wax yar waxyaabaha muhiimka oo runtii qayb weyn ka qaatay amniga oo xukuumaddana tallaabooyinka wanaagsan ee loo bogay ahaa aan uga mahad celinayna shacabka Soomaaliyeed siday noola shaqeeyeen iyo sidii hay'adaha amnigu u hirgeliyeen iyagana hay'adaha amniga uga mahad celinayaa waxay ahayd arrintii xakamaynta hubka oo qayb weyn ka qaadatay qayb libaax in magaaladu ay degto in la waayo isku dhumashadii iyo isdhexgalkii in la waayo xabaddii la iska ridaayey iyo dagaalkii iska socday isku dhicii ciidamada waxaasoo dhan inay hoos u dhacaan ama la waayo ayadana waxaa keenay xeerkii ama qaraarkii xukuumadda ee xakamaynta hubka kaasna in la adkeeyo way asagana waxaan faraynaa hay'adaha amniga inayn ogolaanin marna in lagu xadgudbo qaraarkaas oo lasii adkeeyo waxaa jira waan soo taabanay waana aragnay waana dadhaminay guulaha wanaagsan oo Ilaahay waa aragnay arrinta muhiimka oo kale ayadan runtii oo aad ogtihiin inaan tallaabada ka qaadnay waxay ahayd waa arrintii nidaaminta gaadiidka bajaajka runtii waan uga mahad celinaynaa kaalinta weyn ee ay ka ciyaareen gobolka Banaadir oo in la kala sunto oo la kala jiheeyo oo la kala fududeeyo ayadana guul degdeg ayaa runtii meeshaas laga gaaray waayahan waxaan ka raysanay shacabkeenuna ka raysteen wiil bajaaj wadaan la dilay inta kubaa la dhaawacay
waa laga naystay marka taasina waa qayb weyn oo guul ah ayay ahayd dowladdu sideedaba shaqadeedu waxaa weeye nolosha shacabka inay nidaamiso oo aynan fawdo dhicin haddii dowladnimada la waayo oo kala dambeynta la waayo oo nidaaminta dowladda iyo shuruucdeeda iyo kala habeynta la waayo fawdaa dhacaysa fawdadaasina cid ay guul u tahay ma jirto qofkii isticmaala way dhici kartaa inuu dadka qaarkood ilan ganacsi baa laga joojiyey xorriyaddii baa laga qaaday maalintii bajaajka labada gelin iyo habeenkii waan ordi jiray haddana waa la xadiday laakiin sideedaba danta guud waxay ku dhisan tahay danta gaarka oo la xakameeyo ayay ku dhisan tahay haddii aan danta shaksiga aan la xakamaynin danta guud ma hirgelayso haddii danta guud la hirgeli waayana dantii gaarka ahayd ma jiri doonto marka dambe marka danta guud baa asala kadibna danta gaarka iyadaa kasoo dhex bixi doonta iyadoo nidaamsan oo saxsan ayay kasoo dhex bixi doontaa marka waxaan u baahannahay inaan danta guud ilaalino dowladduna runtii ama xukuumaddu tallaabooyinkaas waxay ahayn tallaabooyin loo aayay oo ay tiimo leh oo aan ku guuleysanay ayay noqotay marka waxaan rajaynayaa inaynu maanta halkii kasii wadano oo aan dardargelintaas aan horey usii dhaqaaqno